عليكم ورحمة الله وبركاته. sidee ku ogaan kartaa applicationada mobilka kugu jira mid walba awoodda aad siisay ama privacy-gaaga sida uu u isticmaalayo, taasoo runtii aad muhiim u ah because application walba mobilkan ku yimid ama mid cusub oo aad kusoo degsatay ha noqdo, mid walba waxaad siisay permission adiga kuu gaara ama permission asaga gaar u ah oo waxa weeye aad ka aqbashay oo yes tiri, kaasoo laga yaabaa markaad ku shubanayso applicationkaas aad muhiimadda uu ku leeyahay applicationkaas aad eegin, laakiin privacy-gaaga ee u dhaawacaya ama waxa kugu jira xogtaada iyo waxyaalaha la midka ee runtii uu aad u isticmaalay applicationka adigana aadan eegin. Marka waxaan rabaa halkan inaan kula wadaaga sidee u arkaysaa permissionada ama ogolaanshaha aad siisay applicationada mid walba nooca uu yahay. Hadda waxaan joogaa shaashada caadiga ah ee mobilka, waxaan tegayaa settingka markaan ku dhufto waan yara sugayaa, waxaan tegayaa waan raadinayaa meel ay ku qoran tahay apps. Android-ka isticmaalay sida hadba modelka uu yahay bay ku xiran tahay. Apps baad ku dhufanaysaa. Apps markaad ku dhufatid halkan geeska ah oo 3 geeska ah baad ku dhufanaysaa. waxaad kasii dooranaysaa permission manager markaa kasii dooratid intaan waa category-yadii ama intii lasoo soocay uu permission managerka ka koobnaa mobilka oo dhan ama ogolaanshaha guud oo lasoo aruuriyay wey. Tusaale ahaan oo kale body sensors, dareemaha jirka ama telefonkaaga inuu waqtiga aad lugeynayso, sidoo kale applicationada aad u ogolaatay oo kale permissionka ogolaanshaha aad siisay, calendarka oo kale applicationada aad siisay. Tusaale ahaan oo kale 3 application baan u ogolaaday 19 igu jiray tusaale ahaan oo kale. Halkan waa call-logi ama wicitaankii caadiga ahaa oo telefonka simka ku jira aad wacaysay oo kale 4 application waad aragtaan. Kamarada oo kale 2 application baa isticmaalay. Contactiga oo kale 10 application. Fileka caadiga ah oo documentiyada kugu jiray hadday sawir noqon lahayd, hadday maqal iyo muuqaal noqon lahayd iyo waxaas oo dhan hal application oo kale. Locationka 5 application. Aniga hadda waxaan ka hadlay mobilkayga. Marka tusaale ahaan oo kale haddii aan kasoo qaadno oo kale tusaale ahaan oo kale waxaa la yiraahdaa aan ku dhufano oo kale kamarada oo kale. Halkan waxaad ku arkaysaa waxa weeye 2 application baa hadda isticmaalayo. Halkan waxaa ku qoran allowed all the time meeshaas oo macnaheedu yahay applicationada loogu talagalay adigu astaanteysay ama u ogolaasay mar walba inay isticmaalaan. Halkan waxaa ku qoran waxa weeye allowed only marka la isticmaalayo. Waxay ku kala duwan yihiin midda kore waa application ama isticmaal oo adiga ku dhex jira ama ay isticmaalin asaga mar walba wuxuu isticmaalayaa permissionka ogolaanshaha aad siisay ee la xiriiray kamaradaas ama calendarka ama codka ama location ama wixii lamid ah. Midana waxa weeye permissionka ama ogolaanshaha aad siisay kaliya markaa ku dhex jirtid ama isticmaalaysid. Halkana waxa weeye midda saddexaad ogolaanshaha aad siisay markasta inuu ku weydiiyo. saas bay ka dhigan tahay. Then waxaad samaynaysaa waad ka qaadaysaa tusaale kan oo kale. Hadda kan ii saaran oo kamarada isticmaalaya wuxuu isticmaalayaa camera permission ogolaanshaha. Waxa mar walba aan qof damacay inaan waco automatically wuxuu sawir buu qaadi karaa. Sawir buu ka qaadayaa, video buu ka qaadayaa because adaa ogolaanshaha siiyay. Marka waxaad ka dhigaysaa waxa weeye weydii mar walba. Halkan wuxuu ku siinaya digniin oo ah haddii aad diidid ogolaanshahan waxyaalaha dheeriga uu wato applicationka wicitaanka iyo call-ka phone-ka kuma shaqeynayo. Waxaan leedahay anigu waxba iima gelin oo kale waa inuu mar walba i weydiiyaa. Haddii aan dhaho mar walba allow only while using the app-ka markasta aan qof waco isagoo aan ii sheegin buu asaga ogolaanshihiisa qabsan karaa. Tusaale ahaan oo kale hal application oo kale haddaan ku laabano kaabaa kasoo qaadnay oo kale aan tagno tusaale ahaan oo kale sawirada oo kale haddaan tagno oo ku dhufano
halkan waxaa kaaga muuqda waxa applicationada isticmaalaya sawirada kale. waxaa jiroo kale waxa la yiraahdo maxay ahayd oo very important salaam codka oo kale hadaan tago kale aan ku dhufto codka. halkan waxaad ku arkaysaa applicationada isticmaalaya codka. salaam oo kale hadda intaas oo application mid walba wuxuu isticmaalaya cod. for example kale YouTube kale hadaan ku dhufto asaga mar walba microphone-keedu isticmaalaya. microphone waa midka markaad waxa weeye aad qof la hadlayso kale ama cod aad duubeyso WhatsApp kale any kind of cod walba application-ka YouTube kale yiraahdo asaga wuxuu awood u haystaa inuu mar walba oo ku dhex jirtid inuu access u helo cod codka mar walba ku dhex jirtid. marka waxaan leeyahay iweydii baan leeyahay mar walba ask every time. for example oo kale messenger oo kale mid walba wuxuu sheegaa markuu ugu dambeysay oo uu isticmaalay. for example messenger-ka wuxuu isticmaalay 8 saac oo duhurnimo maanta waqtiga maanta ah uu isticmaalay duhurkii. hadaad ku dhufatid waad dhex gashid wuxuu ku leeyahay qaybta waxaa ku jirtaa microphone-ka mobile-kaaga application-ka messenger-ka la yiraahdo mar walba waa ku dhex jirtid waad isticmaalaysid. wuxuu awood u leeyahay inuu isticmaalo waxa la yiraahdo microphone-kaaga kamana maarantid oo tusaale ahaan kale messenger-ka codkii baad ku dhageysanaysaa ama adigii waa duubay. marka waa inaad tiraahdaa waxa la yiraahdo ask every time mar walba iweydii. markaa rabtid inaad cod duubtid waa batoonka cod kaliya messenger-ka oo kale ama WhatsApp oo kale wuxuu ku leeyahay iyo ogolow inaad codkii duubo aduu ku weydiisanaya. tusaale ahaan kale hadda WhatsApp oo kale hadaan ku dhufto ama hadda kuwan oo kale applicationadan oo kale aad siisay automatic asaa u qaatay markii aad ku install gareynayso kale waxaa leedahay ma u baahni u ka saaraya listiga kan oo kale ma u baahni u ka saaraya listiga. haddaa WhatsApp ku dhufatid oo kale waxa la yiraahdo si caadiga ahayd wuxuu yahay mar walba iweydii oo qof markaad cod duubeyso kale meesha codka riixaysa automatically codka u diraya. laakiin hadda halkan ku dhufatid wuxuu qof adigu ku weydiinaya ku leeyahay haye waxaan rabaa codkiina duubayaye waxa la yiraahdo yes si confirm baa leedahay. halkan macnaheedu waxa weeye may kuma siinayo codna ma duubi kartid mana dhageysan kartid way macnaheedu. saasaa marka mid walba adiga wixii ku quseeyo baasaa u dooranaysaa oo aad ka bedbedelaysaa. waxaan u malaynayaa aad inuu idin anfacay fiidiyogan. fadlan haddii aad jeclaan lahayd fiidiyo noocan oo kale aan commentiga ku ark aad baad mahadsantahay.